hab isticmaalka cusub ee dhaqashada geela ayaa hadda ka mid ah ganacsiga ka jira magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. geeli baan duulisanaa aan lusnaa waxa weeyaan hadii dhaqankii baan ku lasnaa geela dabir iyo daasad iyo caagad iyo xaynaan gelinin ayaa lagu waalay ma garanaysa. Halkani waa xero lagu xanaaneeyo tiro geel ah oo irmaan, waxaana gacanta ku haya dhalinyaro ku xeel dheer dhaqista geela. laba jeer casar fiidkii markaa uu soo galo casarkii oo fiidkii soo galo iyo subaxii anagu ragii geela lahaa baan hore ragii geela soo ibsadeen laakiin ganacsanay ma garanaysa markaa ragin ka ganacsanaya say doonaan baa u dhagaa laakiin anagu geela waa geeli aabaan ka soo gaarnay aabana uu ka soo gaaray waa abtirsaday ma garanaysa waa saasoo laba jeer baan lisnaa xaggaas u dareeraa burahaas soo daaqaya dhulka ayga xerada magaceedana waxa la yiraahdaa racing aan geel baa la yiraahdaa wadada 200 kaalinta cali waraabe ka soo horjeeda. maanta waxaan joognaa halkan xirigaalkan Maxamuud Nuur Jaamac ninka mas'uulka ka ah halkan weeyaan. Maxamuud walaal ku soo dhawow bal nooga waran xiradan geela. waad mahadsantahay walaal Sharmarkow horta geelu anagu waa geeli aan dawrigeeyba lahaan jirnay magaranaysa inuu aabba ka soo gaarnay aabana uu ka soo gaaray inta markii laga yimaado waqtina hawdkan ku dhaqaynay waqtina uu fariisinay oo qaabkan imka halkaas ayaan uga shaqeynay marka muddo dheer buu geelu hawdka iska geeli jiray oo aan halka hawdkan ku yar maalmaari jirno aan qaalimadooda ka iibin jiray oo dadka kale la mid ahayn magaranaysa marka imka muddo ilaa 9 sano ayaan geela fariisinay aan qaabkan uga shaqeynay. maxay tahay farqiga u dhaxeeya habkii hore ee aad u dhaqi jirteen geela iyo habkan cusub hadda aad u dhaqdaan? dadka caano ka helay magaalada marka geelan 150 koob iyo 150 koob ayaa aroortii habeenkii laga qaadaa magaaladii wuxuu leeyahay dad baa iyaga dib uga ganacsanaya anagu waan ka ganacsanaa faa'iido noo leeyahay gaar ahaan magaaladii markii tagaana dad baa ka iibinaa dadka ka sii iibiya dadka caano ka helay freesha oo la isku soo dardarin oo maxaan ku dhahay imika geela laga saaray imika waa kan wada arkaysaa waa lisnaa waa la qaadaya magaaladii baa la geenaya bari subaxna marka caad soo baxday ilaa 7 ayaa laga qaadaa marka magaaladii caanada cusub uu keenay oo dadka isticmaalayo oo aan la isku soo dardarin oo fresh oo laga saaray lambar 2 wuxuu keenay dadku imika xoolaha uu siinayo xoolaha waa laga sii baxayay bima inuu dadkii dib u yar waa tabcado oo uu xoolihii hami gaar u yeesho ayuu faa'iideeda keenay qiimahoodii dib u soo noqdo magaranaysa geeli dhalay dadkii aan sano kale uga shaqeynay in laga iibsado u baahan yahay qaalimadii in laga iibsado ku talagelayaan faa'iido badan buu ayuu magaalada saameyn tel eg ay ku yeelatay geela noloshiisa. wallahi ma geeli isagu nasiimo ka helay isagu oo daaqii halkan uu dareer daaq buu ka soo helaa magaranaysa waa lambar 1 caws baa loo soo gooyaa caleen baa loo beeray waxa la wixii uu socodka ku soo cunayay ayuu fadhiga ku cunayaa halkan imika ayagana isaga dareera markuu soo hoydana cawska loo daadinayo caleenta loo daadinayo isaga laftiisu nasiimo helay waxaan aaminsanahay inuu sida uu yaadeen hore uu yaaci jiray magaranaysa inuu faatixada macaayiga u dareeyay aaminsanaayba ya marka isaga wax dhibaato isagana ka soo gaadhay ma jirto marka anagu intii dadaalkeed waanu keenay laakiin waxaan ku codsanaynaa dawladda lafteedu inay xoolaha ay ku hayso isha ku hayso oo maxaan ku dhahay xanaanooyinka kale ay la shaqeeyaan xoolaha caafimaadkooda la ilaaliyo boqolkiiba imika anagu baa xiniyahayaga iyo kalsoonidaydii iyo ragnimadeedii oo kaliya ku dhaqayna ma garanaysa laakiin dawladdu waa inay garab istaag samaysaa xanaanooyinka geela la shaqeeyaan caafimaadkiisa la ogaadaa budgetka wax loogu daraa ya maadaama laf dhabarteenay xanaanada xooluhu waa inay boqolkiiba 90 waa inay dadaal kordhisaa ya oo xoolaha ka warhaysaa geela ka warhaysaa anaguna si aanu de u soo kordhina shaqada ya waa inuu garab istaag yeelaa waa inuu beeraha qodanaa waa inuu halka wadanigeeni iyo maxaan kula xoolaha isla kaashana ya idinka laftiinu qayb weyn ka qaata arrin ahaan iyo aragti ahaanba.
Mikrofon. Oo lagu dhiibay. وكاسو ودا خيسايو geeli baan duulisana aan lusnaa waxa weeyaan hadii dhaqankii baan ku lusnaa geeli dabir iyo daasad iyo caagid iyo xaynaan girinay ayaa lagu waalay ma garanaysa ninka la say cawl Yusuf macallin baa leeyahay waa rag geela ka shaqeeyay isaguna ma garanaysa marka arrimuhu waa saddex iyo irmaano wakaasoo waa lusnaayo waxa weeyaan xoolaheeni doorto ka kibirnay oo waxa weeyaan waxa lagu yaacayaa wax dal kala ma garanaysa waa dabeecigeeni dee wax yar baynu ka sii haynaa marka ها هاشن عانيه iyo naga waran inta bal kalista هاشن عانيه wax dhiirkaasi marka toddoba qaada oo ka soo doon ka buuxiyo wada kasoo gacantada aan kula sii magaras marka toddoba koob bay dhiiqda ha dhaayin baa leedahay war ma garta halkii aan markii walba la galaba subaxina intaas laga listaa maalintii inta jeer laba jeer casar fiidkii marka uu soo galo casarkii oo fiidkii soo galo iyo subaxii uu أنا ورجع جيل هذا أنا هرجع رجل سويب سلمني لكن كان عسني مقرص مركز رجع كان عسنا يا سيد وانا بودجا لكن أنا وجيل أبان كسر جاني أبنا هو كسر جاني وابتر سيد مقرص مركز وصل صلبات شربان لسنا حاجة صوت دريرة بروح عاصو صوت دقايق وكايجا وصلوية هذا ما قاعد نروح على الريستين عن الجيل بلده ها وهرجع سك كوري هذا شوفوا ورما قرت وضل الله بقول كانت على ورابك كسر شيء markaas taa weeyaan anigu maxamuud nuur jacbal ninka geela labana waa sida weeyaan ha fiidkiina waa naga helaan aroortiina waa naga helaan laba jeer ma naga helaan qofku iman kara halkan xirad geel dhexdeeda laga iibinayaa ha suuqana meelaan ku leeyahay dhowr meelood markii uu mehereemkii ha wakaasoo waa leef wadada ku jirtaa oo macnaha eeg wixii dadka qaarna waa looga warramaa adu laakiin leef ayaad ugu jirtaa imaka iyo anaguba ديك هو اسكو مد ما هو وادي درجة وإمك هو يجوا بيرد عبسة عفوا خطوات ما دويان انتظروا ليح بالله جه لي ما كلا بالي عنها كبيرة هل ما دوم بكلم بالي
daawadayaal barnaamijkana intaas ayuu ku egyahay intaynu ku kulmayno barnaamijkan oo kale waa anigoo Sharmaarke Maxameda oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo